waxaan dareemi karnaa runtii wadadaas hadda inta carratuurku uu maray faa'iidada uu leeyahay bulshada iyo deegaanka iyo xoolahaba waxaan arki karnaa runtii sida deegaanka uu soo noqday oo dhulkii uu badbaaday waxaa laga yaabaa ceeldaahir marka laga baxo ilaa iyo magaalada ceergaabo la gaadhayo jihadaasoo dhan inay wada ahaan jirtay oo gaari kastaaba meeshii ciidda jilicsanayd maxaan ku dhaha ducanka qaboobay uu iska ordayey oo marayay ciiddii nafaqada lahayd ee deegaanka wax taraysayna ay meeshii ka baxday daadadka markay imaateen ay qaadeen ama dabayluhu ay qaadeen dhulkiina uu noqday dhul saxara ah oo marka aad maraysid aad arkaysid in deegaamada kale ee puntland ama soomaaliyeedba ay ka maxaan ku dhaha deegaan iyo daaqsin iyo dhul wanaagsan yihiin deegaanka gobolka sanaag arrintaasi runtii waxaan u malaynayaa arrin ka macno badan oo deegaanka badbaadadiisa iyo wixii la qabtay aragtidiisa qofkii indho fiican wax ku arkay oo muraayado qallafsan aan sidani uu si badan ugu arki karo sida deegaanku u badbaaday sida daaq uu soo noqday sida xooluhu ay u yimaadeen waxaan xusuus doono aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wax la sameeyo ummadda loo sameeyo wadda ugu qiimo badan ilaahay meeshuu gaarsiiya waa garanaynaa qofka jidgoyga ah sida loola macaamilo iyo qofka qodax dhulka ka leexiya ajarka uu leeyahay iyaduna intaas ay isu jirtaa marka waxaan leeyahay insha allah bilaa kariim guddida ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro tacabka iyo fikirka iyo tamarta iyo canjarafaynta idinku dhacaysana haddaad ixtisaab samaysaan oo ajar ilaahay aad ka dalabtaan u malayn maayo wax ka hooseeya oo ka sokeeya ama hadal ha noqoto ama wax kale ha noqoto inay wax idin yeelayaan waxaan la hadlayaa beesha qaaraanka wareejinaysa sababta ugu kaliftay maanta inaan ku wareejino boosaaso shaqadii runtii bilaabantay duruufo badan oo jira dartood guddida oo aan runtii waqtiyada tan shaqo badan iyo howlo badan haya oo aanay suurtoobayn in baran iyo magaalooyinka kale maxaan ku idhahdaayey la tago oo waqti badan iyo shidaal badan iyo hawl badan iyo tacab badan la galo waxyaalo badan runtii markaan miisaanay guddida oo codsatay in loo soo dedejiyo lacagta si shaqooyinku ay usii dardar galaan arrimahaas darteed waxaan go'aansanay in wejiga koowaad lacagta aan wareejino beeshii iyo dadkay bixiyeenna waa arkaan meeshii ay lacag iyo ciddii bixisay ay mareen biidni illaahi tacaala waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhanka guddida barnaamijka ka soo shaqaysay oo uu mawle u yahay guddoomiyaha guddida aadan saciid saalax ilaahay xasanaad ha siiyo waxyaalo badan iyo duruufo badan iyo kala duwanaansho badan oo dhacay oo waqtiyadii waddada laasimiyey in qaaraanka la bixiyana isagu mar walba uu dhabarka u dhigtay inay lacagtaas ay hirgasho lagana yaabo intaasoo guddi in la sameeyey laakiin qofka keliya mar walba ka hadhayay inuu isaga ahaa waxaan u mahadcelinaynaa guddiyadii kale bannaanka joogay runtii oo shaqaynayey maxaan ku dhahdaay oo lacagaha u qaylinayay oo bixinayay runtii qof uma xusi karo laakiin waxaan leeyahay tacabkiinnii maanta halkaasuu marayaa wixii aad urunayseen oo aad dadka ula hadlayseen oo aad u ilxaaxinayseen oo jeebkooda kaga soo gurayseenna maanta facekii koowaad baa idinka gudbay maanta waxay naga baxay facekii koowaad waxaan leeyahay dhammaan dadka beesha faceka labaad oo aad aragtaan inaanay gudi karin irbad bad la geliyey waxay ka soo qaado wax la mida aanay ka soo qaadi karin shaqada bilaabantay iyo hawsha hadda ku taagan guddida waddada inay sida ugu dhaqsaha badan ay ugu dadaalaan inay u soo bixiyaan qaadhanka dad badan baan dareemaynaa oo ilaahay wax siiyey oo aan wixii ay mudnaayeen inay bixiyaan aan bixin ama waxba aan bixin waxaan leenahay sadaqadu maalka ma nusqaamiso dadkii bixinayay oo ka shaqaynayay inta hantada bixiyaan oo 2 goor iyo 3 goorba bixinayay wax ay caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash ahayn kamay qaadin waxa weeye shilinka godkeena la geli maayo jeebka aan quurno waddada iyo horumarka kale gobolka socda iyo gobollada puntland baan aan wax u darsanno sidoo kale waxaan leeyahay beelaha kale ee walaalaha ah ee deegaanka degan ee aan qaaraanka ka soo qayb gelin wax yarba ha ahaatee muddaanu la qajilayna intaa inaanu keenno waa ka fursan weynay waxa la bixinayaa qajilaad male cid walba wixii awoodi karto marka ay heli karto ama ay hayso ama u fudud shaqadii way bilaabantay wayna horan tahay biidni illaahi tacaala aan bixinno aad iyo aad baan mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba maanta oo bishu ay tahay 10kii bisha 12aad 2020 waxaan kala wareegnay sida idiin muuqata lacag $100,000 ah guddigii matalayay beesha aadan saciid runtii beeshaas oo ah beel mug weyn kule guud ahaan puntland gaar ahaan gobolka sanaag muddana runtii aan u daraynayna inayna soo gaari doonaan maantana
wejigii koowaad la soo gaarsiiyey runtii anigu maadaama aan xubin guddiga ka tirsanahay guud xataa waxaa dhici karta inaan guddiyadooda ay wax ku ururiyaan fariimo u diray oo runtii aan iri arrintaa iyada ah aad iyo aad uga qayb qaata way dadaaleen waxaan leenahay beesha aadan saciid adduun iyo aakhiraba ilaahay barwaaqaha ku boonbooniyo ilaahay maalkooda iyo murqahooda iyo marwooyinkooda iyo rag iyo dumar dhadig iyo labood carruurtooda xoolahooda wax walba ilaahay ha barakeeyo ilaahay waxaan uga baryaynaa adduunka barwaaqo aakhira janno waddadu waa xaqullaahi ilaahay xaqiisii weeye xilligan oo kaleeto soomaalidu khayrka waxay u taqaanaa masaajidda iyo dugsiyada keliya laakiin maanta waxaa aada uga ajar badan waddada sidaa aynu ognahay hooyada rabta inay foolato ee dhakhtar weyn weyda ee caadi u dhali weyda waxay u baahan tahay lala soo cararo qofkii bahalqaniina wuxuu u baahan yahay lala soo cararo qofkii dan kale lahaa oo degdegsanaa wuxuu u baahan yahay inuu soo cararo meeshii 5 saac 6 saac loo socon jiray anigu ceel daahir iyo baran waxaan u kala socday 45 daqiiqo waa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshii awal hoog iyo baa iyo dhibaato lagu qabay marka cid walba waxaa la rabaa inay ka qayb qaadato beesha aadan saciid waa garanaynaa waa beel mugle dhalinyaro fara badan baa u kacday maanta oo shaqaysa oo qaar dibadda jirto ganacsi xoog lay leeyihiin waxaa la rabaa insha allahu tacala inay kasii badiyaan oo wejiga labaadna sidaa si ka weyn ay nooga farxiyaan beelaha kaleeto oo degan puntland guud ahaan gaar ahaan gobolka sanaag waxaan leenahay la kala tag oradsa maaha ka qayb qaata qaybtiini la baxa annaga wax mushkilada male insha allah horta waddadaas way dhismaysaa oo idinka arkay haddeertaan waa kaa laamigii lagu bilaabay way socon doontaa laakiin dhib fara badan baa ka sokeeya dhibkaa fara badanna insha allah waa loo dulqaadan doonaa waa lagu guulaysan doonaa waxaan rabnaa cid walba inay ka qayb qaadato inay wax ku darsato يعني وحاول صدقه يريريس مله لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب النبي صلى الله عليه وسلم وحتى هذا دعيسان أو ترادان أو ضد تاجرتان أو قرينتان أو محام كله هاي وحوين بيترس مركا مرة بعد مرة صدحات وحكم هذا علمي جودجا أو محام كله هذا سعيد صراحة صاحبك ومدح ذوي هاي وضياش الله صعدة waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa sida xilka isu saareen waa naga farxiyeen ilaahu ka farxiyo waa naga farxiyeen ilaahu ka farxiyo waa naga farxiyeen ilaahu ka farxiyo ilaahu adduuniya aakhiraba barakee ilaahu adduuniya aakhiraba barakee ilaahu raggooda barakee ilaahu gabdhahooda barakee ilaahu awlaadooda barakee ilaahu xaasaskooda barakee ilaahu adduuniya aakhiraba khayr ku buunbuun ilaahu xoolaha u barakee ilaahu xiska u barakee ilaahu xilaha u barakee ilaahu meel walbo ay ka tabanayaan beeshaas ilaahu ka tiir beelaha kalena waxaan leenahay idinkana waa idiin ducaynaynaa kuwo hore oo wax naga soo gaarsiiyey way jiraan inta dhimanna waxaan leenahay soo gaara inta hore wax noo soo gaarsiisayna wejigii facekii labaad ama wejigii labaad baan sugaynaa aad iyo aad baad umahadsantihiin